qormadii hore injineer axmed jaamac waa kii maanafay ku arkay aqalka sahre yuusuf waa kii la dhacay quruxdeeda iyo qaabkeeda waa kii sahre ka codsaday inay gacan ku siiso sidii uu ula saaxiibi lahaa sahra waa tii ka walaacsanayd inay barto iyo in kale weli sidii bay u walaacsan tahay waxaa kala jeedanaya laba dareen mar waxay is leedahay waa in aad walaalkaa gacan ku siisaa gabadha uu calmaday marna waxay is leedahay armay dhacdaa dhibaato aad hadhow ka shallaydo waxay go'aansanaysaa inay horta axmed qodqodo si cadna ula doodo dhagayso axmed ayay tiri iyadoo weli fikraysa wejigiisana fiirinaysa intuu sidii nin dareen galay u soo eegay ayuu yidhi haye arrintaad iga codsatay waan isku dayi doonaa inaan wax kaala qabto laakiinse waxaa ku xihan hal shardi waa maxay shardigaasi kolleyba shardi kasta waan kuu oofin doonaaye waxa weeye waxaan rabaa inaad ii sheegto xidhiirka aad maanafay ka rabtaa nooca uu yahay ma guurbaa mise waa gaabsi meel xun bay iga taabatay axmed baa iskula hadlaya isagoon weli jawaabin guur iyo gaabsi waxaabay u hadlaysaa sidii dadkii hore guur iyo gaabsi midnaba miyaan ka fikeri malaha quruxdeeda unbaa ay qalbi ruxday oo horta maxaan ka rabaa ma aqaan waxaan ka rabo keliya waxaan garanayaa inaan rabo horta bal soo xerogeli kadib waxay dhici doonaa iyagaa iska iman doone bal ka soo qaad haddii ay isagoo weli fakeraya ayuu maqlay sahra oo su'aal kale ku qaaday hadal haddee maxaad la aamusantahay jawaab baa lagaa sugayey adigu xujadaas naga dhaafo qofta iskaya bar ayuu ugu jawaabay markii aan iskiin baro haddii aad berri ka maalin gabadhaas islaameed ku cayaartid dembigaasi soo aniga korkayga maaha ku cayaartid waa maxay see ugu ciyaaraya ma ku badbaa maye waa shabaq kuwa aad intaad beenta iyo balaayada ku maandoorisaan markaad muraadkiina ka dhammaysataan godkii aad ku rideen uga dhaqaaqaysaan maxay yihiin ma ku badbaa kam intee gabar reerkooda ku asturayd intaad qalbiga ka xaddeen iyana idin rumaysatay aad baabi'iseen kadibna markii aad caloosha u buuxiseen aad cidlo kaga dhaqaaqdeen kullu fidma waa iyaga axmed baa ku difaactamay imase nin bay iyaba maraqiisa cabbeen kam intee nin horujeed ah xabiibi beenbeen ah lagu shirqoolay markii kabaha lagala baxayna isagoo caagaacad durufkiisa la tuuray ee lagu yidhi faraskaagii laga bidi aboo raalli ahaw taasi idinma noqon karto isdifaac aad ugu marmarsootaan dembiga aad hablaha ka gelaysaan abaaye runta haddaad rabtid iyo haddaadan rabinba hablaha hadda joogaa iyagaa maafiya ah maafiyana ninkii wax ku darsanaya waa ku khasban yahay inuu kula dhaqmo murtida ah masku intuusan kugu candhuufin ku candhuuf waa ka xum ahay meel baad uga dhacaysaa gabdhaha ma filayo inaan sheegay waxaan jirin haddaadse ka xumaatay iska raalli ahaw murankaasoo dhanna nagaba dhaafo ibar saaxiibaddaa iska yabar ma ku baraayo see kuu baraaya waabaad ii caddaysatay lugooyada aad la magan tahay maya ha ka cabsan maanafay waxay u eg tahay gabadhaydii mustaqbalka ishaarteedan ka arka ah fariid wallaahi markaad dabin dhigaysaan waa taqaanin sida hadalka loo macaaniyo mayaa bahay adigu walaashay baa tahay waad og tahay inaanan been kuu sheegi karin maanafayna way ka duwan tahay noocii aan sheegayey maaha kuwii aan deminka isu dhigi jiray kuwaas qudhooda aad maafiyada ku sheegayso waxa ay samaynayaan aragtay laakiinse marna ma isweydiisay cidda ku kalliftay oo dembigaa iska leh adiguba ii sheeg haddaad taqaan rag baa ku kallifay rag sahra waxaa la gaaray wakhtigaagii aad inaan rag oo dhan maxkamadda soo taagi jirtay ayuu yidhi isagoo qoslaya ee isku dayaya inuu hadalka majarihiisii kaftanka ahaa ku soo celiyo si ay dooddu u qabowdo dantiisiina uu ugu soo dhowaado sahrase uma eka qof kaftan diyaar oo ah weli dagaal bay ku jirtaa maxkamad keliya maahae weliba waxaad istaaheshaan maxkamad militari ayay ku handadi iyadoo codka kor u sii dallaacaysa halkii uu ka filayey in ay la wado kaftankii uu islahaa doodda ku qabooji diid ama hadiidin eedaysanayaal baa tihiin bal ilaah baan kugu dhaarshay xaq miyaa inaad gabdhaha marka horena aad idinku jidka xun ku hoggaamisaan marka dambena wixii aad barteen ama aad ku khasabteen aad ku caydaan kuna nacdaan yaa xaq kuu siiyey inaad habeenkii aad doontaba gabar cusub la tumato haddana tidhaahdo ma guursanayo gabar nin hore la seexatay intuu indhihii ay ku caddaynaysay kuwo ka sii cad ka horgeeyey ayuu ku yidhi
miyaad isyeelyeelaysaa sahra sidee u guursanayaa qof soo gubatay oo rag hore la soo tuman jirtay bal hadda eeg waa kaas caqligiinnu waa caqligii qarnigii labaad sidee bay iyadu kuu guursanaysaa adigoo naaga hore la soo tuman jiray wixii xun waa in la iska wada dhaafaa rag iyo dumarba wixii aan xumayna waa inaan qofna gaar ahaan xumaan looga dhigin sahra ha isyeelyeelin abay qofta dumarka ah waa qalad inay tidhaahdo tallaabadii nin qaado oo kasta ana waa qaadaya aboowe waa ka xumahay adigoo ah wiil yar oo mutacallim ah inaad haddana ku fakerayso maskax gabowday idhegayso abay yay caqliga kaa xadin baan ku leeyahay qolyahan waalan ee dhowaan soo baxay ee dunida ku wareeriyey feminism iyo dumar baan xoraynaynaa iyo waxyaalaha la midka ah ee ay ka badbadinayaan abowe cid waalaysaa ma jirte waxaa la idiin sheegay oo keliya cabiidsigiinni wakhtigiisii inuu dhammaaday hadda adigu aan ku ogaanaya sahraay waxaas oo cara ah ma waxaad u dagaalamaysaa hablaha yaan la odhan xishooda oo joojiya beenta iyo iswaalka iyo suuqan aad gelaysaan abow hadalka hayga qalloocin waxa aan difaacaya ma aha suuq gelid iyo musuq maasuq iyo wax la mid ah waxaan la dagaalamayaa xaqdarrada kale ee dumarka lagu hayo waana xaqdarradaas faca weyn oo soo jireenka ah midda khasabtay inay soo baxaan kooxahan aad maagayso ee u dagaalamaya xuquuqda dumarka oo kaalay raggu iyagu xaq male miya marka aad joojisaan dulmiga aad nagu haysaan ayaa la arki doonaa inuu idinkana xaq idinka maqan yahay in kale laakiinse inta ay sheekadu joogto inaad ku faantaan falal aad annaga nagu caayaysaan meesha hadal ma yaal kaalay adiga horta yaa kuu doortay inaad noqotid qareenka u dooda xaawalay oo dhan anigu waxaan xanaaqaa marka aad hablaha wada dhaleecaysid okay hagaag ma diidani inay jiraan qaar badan ama hablo badan oo wanaagsan adiguna laakiin haddiidin inay jiraan rag wanaagsan oo gabdhahooda daacad u ah waa hagaag ayay u tirisi qabow haddaba anigu kuwaasan ka mid ahay iskaayabar saaxiibtaa maanafa waa hagaaga iga ballanqaad inaad ka dhiganaysid gabadhaadii mustaqbalka waa kaa ballanqaadayaa haddii ayan ku dhicin imtixaankayga naabal aamusa imtixaankayga dhegayso imtixaankaas waa inaan anugu kula saxaa imise maadawdood baad ku imtixaamaysaa miskiinta taasi waxay ka mid tahay sirta imtixaanka mana habboona in ardayda loo sii sheego laakiinse anigu maahay qoftii aad imtixaamaysay ardaydaad ka mid tahay sidee uga mid ahay maadaama aad gabar tahay ma bannaana in laguu sheego sirta ragga alla kani waa dhiiglaawe waryaa walaashaa waa lala socodsiiyaa sirta nimanka si ay uga digtoonaato shirqooladooda raalli ahaw cidna lama socodsiinayo sir laga yaabo in loo gudbiyo qofta aan shaxda wada dheelayno walaashay waxaan la socodsiinayaa wixii aan halis gelinayn aniga danahayga oo soo ma ogid danaystanimada caynkaasi inay tahay waxa lagu cambaareeyo imberiyaaliyadda caalamiga ah war culus imberiyaaliyadda caalamiga ah raalli ahaw sahra ha igula hadlin afkii guulwadayaasha iyo siyaasiyiinta inaad aqoon siyaasadeed leedahay waan ku ogahay laakiinse ha naga fogeyn arrintii aynu ka hadlaynay ha iloosiin maanafahay caawa iyadoon baa ii daranay fadlan gacan igu sii sidaan qoftaas u heli lahaa kadibna danayste iyo imberiyaaliste iyo waxa la wixii aad doontidba igu magacow intay qosol yar ku dhufatay bay kaftankeedii sii wadatay ee tiri laakiin walaalle anigu diyaar uma ahay inaan noqdo dabadhilifka imberyaalistaha u majaxaabiyeed dadweynaha danyarta ah ee uu dibindaabeynayo ya salaam ايش على سياسية الله ما حي رادية مقدشة ودقيستي رادية مقدشة مياد روجين إن أهانشري وبحك عنك ورركا إن هذه ولا هالليسو وحي عاد كسر مقشي قول يا شهنونت لكن دقيسو هذه أنت عاد إمبرياليستها إيجا دقيست بل ماد إيجا دكتيد شعب حقوق كم مقن وهالجمية واجب كنا إياها إني هرصعتكو تغير أفضيان ما لقى ما دقي كرو شعب حق كم مقنيه ومحا dhacay miyaanan xaq u lahayn inaan u halgamo sidii aan ku heli lahaa jeexayga maqan gacaladeydii nolosha ila wadaagi lahayd gacanna aan iigu jirin waa lagu taageeri lahaa haddii waxa aad u halgamaysaa ama u dagaalamaysaa ay run ahaan u yihiin gacaladii nolosha kula wadaagi lahayd laakiinse sansaanka iiga kaa muuqda waxaad u halgamaysaa dhayladii aad ku cashayn lahayd
habeenka jimcaha uun kadibna qorshahaagu waa inaad ka faraxlataa xaashaa lillah ha igu eegin indhaha siyaasiyiinta qorshabay wuxuu eegaan siyaasiyiintu maadaama midkood walba ay maskaxdiisu u jahaysan tahay munaafaqnimo iyo khiyaano qofkii uu la kulmaba waxa uu u arkaa munaafaq khaa'in ah oo been sheegaya ama gaadaya wax uu xado ama waxaad leedahay siyaasiyiinteennu dhanka xun unbay wax ka eegaan hataa marka ay ku qoslayaan nacam aadna ila garatay baan filayaa waa hagaag haddaba maadaama aad aniga igu tilmaantay siyaasiyad waa inaan difaaca saaxiibaday siyaasiyiinta waa inaan ku tusaa inuu jiro siyaasi wanaagsan oo wax ka eega dhanka wanaagsan waa kaa rumaysanayaa inaad baadi goobayso jeexaagii maqnaa maanafayna aad u aragto ama ay kuula ekaatay gabadhaadii riyada hadday arrintaadu sidaa tahay igu dub aniga inaan farta kaa soo saaro maanafay feeda karoon farxad kadis ah ayuu kor uga booday kursigii uu ku fadhiyey ii dhiib gacanta ayuu la soo booday isagoo Sahra Yuusuf salaamaya labada dhabanna ka dhunkanaya halkaa haynoo joogto qaybtii labaad ee qisadii maanafay toddobaadka dambe ayaa noo ballan haddii eebbaha awoodda lihi u ogolaado